saddex konton jirka loo doortay madaxweynaha shanaad ee maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 1966kii. Tacliinta heer jaamacadeedna waxa uu wax ka bartay kulliyadii luuqadaha ee jaamacadii ummadda ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa jaamacad ku taalo wadanka Malaysia uu ku soo qaatay shahaadada MBA ee maamulka iyo maareynta. Sanadihii 2002 ilaa 2012kiina waxa xilal kala duwan oo heer maamulo dhinaca ganacsiga uu ka soo qabtay ururo ganacsi oo kala duwan oo ay ka mid ahayd rugta ganacsiga ee Puntland. Waxa uu sidoo kale hogaamiyay sharikado ganacsi oo gaar loo leeyahay. Ka qaybgalka siyaasadda ee gudaha ee Puntland ayaa uu ka soo dhex muuqday dhowr jeer oo kala duwan. Marka si gaar ah loo eegana sanadii 1997kii waxa uu ka mid ahaa ergadii gobolkii Bari oo hadda u kala baxay gobolka Bari, Gardafu iyo Karkaar. Ergooyinkaasi oo ka qayb galay aasaaska Puntland. Waxaan ka mid ahaa xubnihii aasaasay Puntland. ra'yigii markaa aan qabay iyo wixii aan filayay 20 sano kadib dadkii aniga ila mid ahaa oo dalka jooga ma haystaan. Sanadii 2003 waxa uu qayb ka ahaa guddigii dib u heshiisiinta ee khilaafkii dhanka siyaasadda ka dhacay Puntland, isagoo xubin ka ahaa guddiga nabadeynta. 2008 waxa sidoo kale uu ka qayb qaatay dib u habeyntii dhaqaalaha Puntland, isagoo markaasi ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga isku dhafka ah ee dhowrista ammaanka iyo dib u habeynta ilaha dhaqaalaha ee Puntland. sanadkii 2009kiina waxa uu noqday la taliyaha madaxweynaha Puntland dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga. Ka qaybgalka dhinaca siyaasadda heer federaal ee Soomaaliya, madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu noqday xubin ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2012. Sanadkii 2014kiina waxa uu noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya. waa maalin qiimo mudan oo ay mudan tahay in dib loo milicsado. sanadii 2017 Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu ka mid ahaa murashaxiintii u tartamay doorashadii tagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu ka soo dhaxbaxay madaxweyne Farmaajo. hadafkayga siyaasadeed ama aragtidayda siyaasadeed inta badan way qeexan tahay oo wax mugdi ah kuma jiro. waraysi bishii Juulaay ee sanadkii 2018 uu telefishinka Home Cable siiyay Siciid Cabdulaahi Dani ayaa wax lagaga weydiiyay aragtida markaasi uu ka qabay maamulka xilligiisu dhamaaday ee Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. waxaan aad uga xumahay maamulkii Puntland 20 sano kadib in uu ku soo ururay talada qof iyo rabida qof ku kooban in uu ra'yigiisa iyo danihiisa gaarka ah sida uu markaa u arko inuu u dhigo. waa nasiib darro. mar kale Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu markaasi muujiyay fakarkiisa ku saabsan federaalnimada iyo aragtida uu ka aaminsan yahay. qodobka koowaad ugu muhiimsan waxa weeye dowladda federaalka ee Soomaaliyeed kaalinta ay Puntland leedahay sida u qaadan lahayd inaan hadafkii koowaad ugu muhiimsan way. ugu dambeynna waraysigaasi uu siiyay telefishinka Home Cable waxa uu ku sheegay sida uu arko khilaafka gobolka Sool ee sababay dagaal inuu dhaxmaro ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. dagaalkaasi oo ka dhacay Tukarraq iyo waxa uu ku maareyn doona haddii madaxweyne uu noqdo. dabcan anigu wixii aan markan maamulka imaado aan u eegi lahaa hadda sheegi maayo. ma ahin min colaadeed ma hurunayno inaan dalka colaad gelino, laakiin haddana xaqiiqada jirta in indhaha la iska tiro maaha. dabcan khilaaf dastuuriya jira. Puntland waxaa lagu dhisay 5 gobol iyo degmo. gobolka Mudug waa waqooyigiisa, gobolka Sanaag waa barigiisa. ma aha gobolka oo dhan waxa ay reer Puntland sheeganayaan marka ay saa u qeexayaan. degmada Buuhoodle oo iyadana gobolka Togdheerka ah jirta. waxaan aaminsanahay Tukarraq waa arrin hadda uguba oo dhalatay, laakiin waxa la isku hayo waxa waaye waa deegaan inta ka ballaaran oo Somaliland sheeganayso, Puntland dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda ay qeexayaan, xaqiiqaduna ay qeexayso. marka arrintaas waxaan aaminsanahay in ay ku dhamaan doonto dadka sideedaba dimuqraadiyadda dadku wuxuu u doonayo ayaa saldhig u ah. marka dadka dhulkaas waxay doonayaanna waa caddahay. wixii khilaaf uu jiray aragti qabtana waa laga wada hadli karaa. haddee fal dambiyeed buu u muuqanayaa ciddii isku dayda rabitaanka dadka inay ka hortimaado ama ay xoog ku muquuniso.